madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa soo kormeeray mashaariicda TPLG-ga ee maamulka dawladda sida degmada Burco ay ka hirgeliyeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu dhagax dhigay wado muhiim ah oo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laga hirgelin doono madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa markuu kormeerkaasi soo dhameeyay wuxuu booqday munaasabad kooban oo hotel Daali magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maamulka dawladda hoose uu ku qabteen waxqabadka TPLG-da iyo maamulka dawladda hoose ee degmada Burco ay ka hirgeliyeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer madaxdii kala duwaneed ee halkaasi ka hadashayna waxa daladoodii kamid ahaa sida inta ka soo wareegtay waxyaabaha isbedelay waxa isugu jiraan mashruuca markay ka hadlayno saddex qaybood maamulkii iyo shaqada ahaa inay iska bedeleen dhismayaashii wax inay iska bedeleen iyo inay iska bedeleen shaqadii ay wax iska bedeleen waxa sanadkii 2022 koob buuraan nagu soo wada wareegay dhammaan shaqaale hoosaadka ee lacagta siinaysay hay'adda UNICEF iskuulada iyo xanaanooyinka labadaba waxa aanu sameynay 26 fasal baan dayactir ku sameeyno iskuulada qalabaynaysa 26 ka waxa aanu sameynay 5 wado oo 8 kilomitir isku noqonaya waxa soo biiray in administration manualkii in lagu tababaray shaqaalaha iyo agaasimayaasha cusub markaan eegno xagga waxqabadyada kale ee dawladda hoose u gaarka ah aanu gudubno waxa isbedelay hanaankii guud ee shaqada xafiiska waxa isbedelay qorshayaashii waxa isbedeshay miisaaniyadii waxa nagu soo biiray qalab badan oo sawirradooda halka ka arki kartaan waxaanu kicinay gaadiidkii fadhiyay magaalada diiwaangelin baanu ka sameynay dhamaatay imika toddobaadkan imika aan ku jirno oo dhammaan guri walba GIS-kii aan ku soo qaadnay waliba dhulka bannaan mudane madaxweyne wadooyinka aad dhagax dhigtay iyo xanaanadii sanadkii hore hadda way dhamaadeen iyagoo qurux badan oo asfal leh baad soo arkaysaa xanaanadiina way dhisan tahay iyadoo weyn qalabayntiina waan dhamaystirnay waxa kale oo imika qorshaha ku jira wadooyinkii barigii hore aanu sameynay kuwa JPLG oo qura ma aha laba qura ka ahaa laakiin 5 kilomitir ee dheeraadka dawladda hoose ayaa sameysay waxaan kugu hambalyeynaa sida aad mashruucaas u dabada xafiiskan madaxweyne ku-xigeenaad hogaaminaysay waxaan oran karnaa faa'iidooyin badan baa laga dhaxlay maalinba meel uu taagnaa maanta dawladda hoose halkay maraysa ee Burco iyo wixii ay qabatay wax lagu faani karo aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaan insha Allah taala indhaha ku soo tusi doonaa degmada Burco muddadii ugu dambeysay sanadii barkaha wixii uu qabsoomay haday caafimaadka tahay iyo haday biyaha tahay iyo haday waxbarashada tahayba barnaamijkan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku ee ah maamul daadejinta ee hirgalay ee Soomaaliland si fiican uga hirgalay waxaan anagu weyno ah inaan joogno Burco maanta bishii tahay 22 bishii tobnaad oo maalin khamiis ah aad iyo aad bay sharaf ugu tahay inaan maalintii labaad ku guda jirno socdaalkeygii anugu ku hurgalaynay xaaladda ku sugan yahay dadweynaha degmooyinka ka socda mashruucaas wadaagayaasha ama mashruuca jeeb Saciid Cali Cismaan Xaalays telefishinka caalamiga ee Gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer